aad bay u mahadsan tahay ayaan Toronto mudane madaxweyne madaxda sharafta leh barnaamijkii caaway ay ku soo tala gashay waa bari halka haynoo joogo aad baan idin salaamayaa aad baan idin jeclahay ummadaydi Soomaaliyeed ilaahay haydin barakeeyo bushina hayna ka saaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maareeyaha wakaaladda murtida iyo madadaalada mudane abwaan cabdiqaadir cabdi shube waxaa sidoo kale mahad u soo jeedinaynaa kooxda waaberi oo tayar iyo caaw oo dhan inagu habeeyey kaalimihii sugaaneed aad maqlayseen waxaa sidoo kale run ahaantii aan halkan uga mahadnaqaynaa dhallinyaradii iyo barbaartii caaw intii ay halkan munaasabaddu ka socotay iyaguna fadhiyey daljirka daahsoon iyagoo ku labisan calanka oo halkaas iyagu heeso wadaniya isku maaweelinayay dhallinyaradaas waxay soo fartay inaan madaxda salaan diiran ka gaadhsiiyo 4 saacadood bay taagnaayeen daljirka daahsoon madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana salaan bay u soo gudbiyeen inta haddii aan kaga gudbo qaybihii ugu dambeysay ee marwooyin iyo mudanayaal aan soo gaadhnay barnaamijkeenna marka hore waxaan hadal jeedin siinayaa guddigii qaran ee munaasabadaha qaran soo abaabulay marka xigtana madaxda qaranka ayaa inala hadlaysaa ugu horeyn baan u yeedho munaasabadahan bilicda san brotokoolkooda iyo nidaamkooda ciddii hanaanisay guddigaasi 4 waaxood bay isu jabiyeen oo u qaybsameen qaybta bilcinta iyo brotokoolka habmaamuuska waxaa madax u ahayd wasiirkeena qaaliga ah wasiir khadiijo maxamed diiriye kelmad kooban bay odhanaysaa waxayna ku soo dhoweyn doontaa guddoomiyaha guddiga wasiir dubbe oo kelmaddii rasmiga ahayd ee guddiga jeedin doona soo dhow wasiir الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو قدوميها كسمها قدوميها قلاء الشعب برلمان جمهورية فدرالك الصومالية اهنا gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiwali ibraahim sheekh muudey ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane injineer maxamed xuseen rooble gudoomiyaha maxkamadda sare mudane baasho yuusuf madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ariirkan wadaagikan walaalkan madaxweynihii kan mudane cabdicasiis maxamed axmed cabdicasiis maxamed xasan garaadka lafta gareen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho مدني عمر محمود محمد فيليش القال والد قدق قرن السرية قبن قابضة حسك مناسبة مالمها حرية حبناها قلاه وزير رضا أما قلاه حكومة جمهورية فدرالك الصومالية
xubnaha ka socda labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida saraakiisha iyo saraakiil xigeenada halkan ku sugan maamulka iyo ku-xigeenada gobolka banaadir gaar ahaan guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir dhallinyarada ururada madaxdooda siyaasiyiinta labeenta madaxdii hore ee dalka ee halkan ku sugan halyeeyadii qaranka ciyaartooydii hore ee soomaaliya qurba joogta rag iyo haween iskugu jira ee halkan jooga hoobalada qaranka waaberi iyo kooxda kale ee ku lamaansan ee kaalmooy wasiir dube waxaan si gaara uga mahad celinayaa fanaanadeenna martida inoo ah oo aan caawa halkan ku arkay inay marti u tahay wasiirka warfaafinta oo ay hoobalada qaranka hoos tagaan dhammaan ciidamadii qalabka siday kooxdii salaanta ee calanka u taagnayd markii uu madaxweynaha la gaaray xilligii 6 saac halkan jooga marti sharafta kale yar iyo weyn mudanayaal iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barisamaadku ilaan waa badan yahay mar kastaba qof dad baa barisamaad ku jira annagaa barbaraarni ku jirna sooma dalka guud ahaan ayaa laga xusayaa maalmaha xorriyadda gobonnimada madax bannaanida cidba sidii ay u taqaan mudana madaxweyne ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa soo magacaabay guddigan oo noo sheegay in maalmahaas ka soo dhalaalno waxaan ugu horeyn leeyahay waxaan maqli jiray waxaana habeenkani hees la dho waqalkani udgoona kuma luqayn karo laakiin habeenba habeen ka wacan micnihiin sidaasaan ka wada mudana madaxweyne muddadii xilka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lagu igmaday waxaan ka soo qayb galnay munaasabado badan oo shakhsiyan aan ka mid ahaa guddigii qabanqaabada waxaan qirayaa in ra-iisul wasaarahan xilliga uu yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble guddoomiyaha guddiga sare ee qabanqaabadana uu yahay mudane wasiir ka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cismaan dube sidaas daraaddeed habeenba habeenka wacan xukuumad ka wacan guddiba ka wacan warkaa intaa ku dhan faahfaahintiisa geli maayo waayo halkan sidii hore sanadka hore miya ahayd indhaha markhaatiya magaalada muqdisho sidii sanadka hore loogama dabaaldegin gobolka banaadirna saasaa looga dabaaldegay tan iyo maalintiina la magacaabay dhowr iyo 10 cisho oo hawshan soo socotay yar iyo weyn caruur dhalinyaro iyo haween marka intaasaa laga gartaa faqaamada ra'iis marka waxaan ku leenahay intaasoo ku baaltaagan bahalku uma soo dhacayo noolow madaxweyne mahadsanid ra-iisul wasaare adaana siiyey fursaddan guddoomiyaha faahfaahin doona oo si fiican noogu qaybiya 4 guddi oo hawshan soo wada qabatay gaar ahaan guddigii habmaamuuska oo aan halkan ku sugannahay dadkii gaarka ahaa oo aan u soo gudbinay guddoomiyaha iyo xafiiskiisa xitaa garabayna siiyeen dhalinyaro badan oo hiwaayado hal abuur le samaystaa garabna siiyey intaaba guddoomiyahan u dhaafayaa iyo guddiyada kale howlihii ay soo qabteen wabilaahi towfiiq alf mabruuk hambalyo aad iyo aad ayay umahadsan tahay wasiir khadiijo maxamed diiriye markana waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadaha qaran wasiirka warfaafinta mudane profesor cismaan dube
بسم الله عاوة واللحية لبعتن كيشون لحدن يكون قوردي كسوريكتي مالنتي على الصوماليات وحرة لقتاقو عيد صوماليات همباليو وحنكون بالعبايا سلامتا وحنكون بالعبايا مدحوينات جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتو سلام مدحوينه waxaan ku xijinayaa gudoomiyaha gudoomiyaha golaha shacabka isla markaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muudey waxaan ku xijinayaa ra'iisul wasaarahayga maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ana hogaamiyaha qaybta garsoorka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baashe yuusuf axmed isagana aad baan u salaamaya waxaa caawa martiyan oo ah oo munaasabadda jooga madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waan salaamaya madaxweynaha isba waa madaxweyne kale gudoomiyaha gobolka cumar maxamuud maxamed cumar filish maamulka gobolka banaadir 4 milyan oo soomaaliyeed ayuu maamulaa isagana waan salaamaya salaan kadib waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo shacabka soomaaliyeed aqoon-yahanka siyaasiyiinta xubnaha golaha wasiirada xubnaha labada aqal aqoon-yahanka madaxdii hore qaranka oo aan salaanta ka soo bilaabay dalkan u soo shaqeeyey aad baan iyagana wada salaamaya kooxda waa beri iyo fanaaniinta kale ee aanu dibadda ka keennay oo qaarkood iyaguna inoo kowda luuliyo ay ku qoran yihiin oo ay kowda luuliyana madadaalin doonaan iyagana aad iyo aad baan u salaamaya bahda warbaahinta oo ilaa iyo galabta taagnaa oo salaamaya ciidamada qalabka sida ee sugaya amniga aad iyo aad baan u salaamaya qaybahooda kala duwan saraakiishooda saraakiil xigeenadooda alifleydooda dableydooda xaasaskooda caruurtooda hambaliyo iyagana waxaan u mahad celinayaa guddidii qabanqaabada oo runtii shaqo weyn qabtay shaqo aad u la yaable bay qabteen habeen iyo maalin way shaqaynayeen afartii hogaamiye ee kala hogaaminayey hadda khadiijo maxamed diiriye aragteen wasiir cabdilqaadir maxamed nuur baa isaguna hogaaminayay guddiga bilicda iyo guddoomiye basma waxaa hogaaminayay shukri maxamuud afrax iyo cabdirashiid waa runtii guddiyadu aad iyo aad bay u shaqeeyeen guddiga amniga shaqo weyn bay iyaguna qabteen aad baan u salaamaya wasiir xasan xaaji wuu jooga waxaan xafladani la-aanteed aanay qabsoonteen shirkadda qurxisay bishay bilicdan samaysay ee beelakuwiin sacab ha loo tumo beelakuwiin la-aanteed quruxdan iyo jawigan ma aynaan heleen iyo farsamo yaqaanka ayuub iyo tiimkiisa iyagana waa salaamaya brotokoolada madaxtooyada oo ugu horeeya jiif cadaani iyo brotokoolka ra-iisul wasaaraha sabriye iyaguna shaqada ay qabteen waa ku hambaliyeyna intaa kadib mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan 2 kelmadood ka xuso habeenkan taariikhiga ah ee 26 Juun runtii gobonnimadu waa geed ku baxa dhiigga geesiga waxay ku timi dadaal halgan nafhur iyo keenadiidnimo ay sameeyeen muwaadiniin dalkooda iyo dadkooda jeclaaday kana jeclaaday inay isu dhiibaan gumaysiga ayay ku timi laakiin waxaan doonayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee caawa malaayiinka ah ee ina daawanaya inaan halkan fariin yar uga diro kullay qodbada madaxweynaha ay ku jirtaa taariikhdu laakiin madaxweyne waxaan rabaa inaan xusuusiyo
macnaha ay maalintani leedahay. waxa ay leedahay gumaysi. inagu gumaysi ma naqaan. jiilashii inaga horreeyey oo ay inagala joogaan soo jireennada halkan caawa fadhiya xerbeegtida waxay garanayaan xanuunka uu gumaysigu leeyahay. innagoo keliyana ma ahayne afrika oo dhan ayuu ku ahaa masiibo loo soo diray. 1884 ayay yurubiyanku intay baarliin fadhiisteen ayay afrika sidii keegga ama doolshada u qaybsadeen. qoloba meel bay qaadatay. go-aankoodiina waxay u fuliyeen si arxan darre ah. dalka kongo la yidhaahdo 15 milyuun ayaa Belgium ku dilay. dalka South Africa dalkiiba inta la qaatay ayaa waxaa loo diiday qof madow inuu xafiis galo ama tareen raaco ama guri dhisto ama noolaado. oo la yidhi adigu waxaa tahay xaq uma lihid inaad xataa meel wax laga cuno soo gasho. waddamada aada loo baabi'iyey ee gumaysigu cagta mariyey waxaa ka mid ah Algeria. 1 milyan oo qof baa Faransiisku ku dileen. waxaa ka mid ah Namibia oo bishan uun Jarmalku ogolaadeen ummaddan ay xaaqeen. ummaddan oo reer Namibia baan qofba laga hayn oo inta la xareeyey gaajo loo laayay. Soomaalidu waxay ka mid ahaayeen dadkii gumaysigu dhibay. kumanaan iyo kumanaan qof ayaa ku maqan gacanta gumaysiga. nin cali dhuux la yidhaahdaa wuxuu arkay dadkii oo la laayay markii daraawiishi kacday. qabiilkii intaa degi jiraan quri ka noolaynabi caawana qudhaydiyo cabdoo qaawan baa haray. yacni waa xasuuq. wixii ka dhacay kilaasayle, wixii ka dhacay lafoole lafaha loogu magac daray, wixii ka dhacay dunida iyo Soomaalida waynu ognahay. runtii lama soo koobi karo. halganka iyo xanuunkaasay gobonnimadu ka dhalatay. wax kalena ma ahayne wuxuu raahaa qof ama ka yimid Talyaaniga ama Faransiiska ama Ingiriiska ama Addis Ababa oo la dhulka anigu aan xukumo dadkana anigu aan yeesho. konsabka gumaysigu waa ka ujeeddadiisuna wax kale maaha. waa dunida qofka xoogga weyni wuxuu jecel yahay qofka itaalka daran inuu qaato, addoonsado, yeesho. intaa weeye waa sida jirka bini aadamka. imiyuunkaagu hadduu dabco ama difaacaagu waxaa ku qabsanaya hargabkaa ku dilaya. ummadaha daciifka ahina waa sida. waana waxaaynu rabno inaan bedelno, inaynaan dib u noqonin daciif. mar kasta oo aynu daciifno waa mar kasta oo layna farageliyo. runtii waxaan madaxweyne dhallinyarada xusuusinayaa intaa sida keliya ee lagaga badbaadi karo gumaysiga dadban ama gumaysiga tooska ama faragelintuna waa qaranka oo quwad yeesha, isku tiirsanaada, midooba, adkaada, sida unugyada cadcad ee jirku ay kaarayaal iyo diyaarado u yihiin. qarankeenuna diyaarado iyo kaarayaal uu dalka ku difaaca u yeesha. waxaan ku soo gabagabaynayaa farxaddii habeenkaas calanka laga taagay Hargeysa ayaynu habeenkeedii caawa joognaa. suugaanyahanadii habeenkaa ka maahmaahay way ilmeynayeen, way qiiraysnaayeen. waxay u qiiraysnaayeen calanka iyo madax bannaanida. waxaan ku xusi karaa cabdi iidaan markuu ka yaabay calankii jacaylkiisii iyo udgoonkiisii wuxuu yidhi albaabkii kabcadan kugu masalay agabkii saarayd. kabcada marada saarane udgoon buu ku masalay cabdi iidaan calanka. ismaaciil xaleef wuxuu ku masalay, wuxuu yidhi ciidamo malaykaa siday oo ciidda soo dhigay. in malaa'igiba inoo keentay buu ka dhigay. cabdilaahi suldaan timcadane wuxuu yidhi balaan maruun arka baalkee sarreeyow ma nuqsaamow bale siduu yahay aneegne kaana siib ka nasaar. absolute. cali xuseenna wuxuu yidhi habeenkii 1 luulyo cali xuseen xirsi makaadsade kor u eeg buluugley rag baa oogadaa sudhay. kor u eeg buluugley rag baa oogadaa sudhay. halgankaas iyo nafhurkaa
iyo taariikhdaasuu leeyahay oo aynu caawa ku dabaaldegaynaa laakiin gobonnimadu waxay u baahan tahay hanasho sida lagu hanan karaana waxa weeye isku tiirsanaan midnimo hoggaan iyo aragti fog oo qarannimo intaaba maanta waynu haynaa cirkuna waa hunkodayaa roob iyo barwaaqana way soo socotaa wasiirkii batroolkuna waa joogaa sheekhaalow jannaa soo socota aynu u dabaaldegno aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasaanu shaqadayadii ku soo gebagabaynay diyaarna waanu nahay 1 luuliyana inaanu sidan iyo si kasii qurux badan caawana magaalooyinka dalka oo dhan waa laga dabaaldegayaa gaar ahaan caasimadda siduu cabdirashiid sheegay dhallinyaradii ilaa hadda way joogaan way dabaaldegayaan way faraxsan yihiin soo wax kalena maaha guddida qabanqaabadu waxay ka shaqaynayeen wacyigelinta iyo baraarujinta iyo noolaynta ruuxiyadda wadaniga ah ee ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan idiin salaamayaa aweys wanaagsan xorriyad wanaagsan madax bannaani guul iyo gobonnimo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha guddiga isla markaana wasiirka warfaafinta mudane professor Usmaan Dube iminkana aan u yeedho kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdiwali Ibraahim Muudey si uu ugu soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda bismillaah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحال إيوه ياري أنا مدحوينة سودوي لكن مدحوينة أنت سودوي ننكهر دمانتي وسلامنتي ما عكستوات كفادان قفوف مشي كراني أنت أسكدب عاو حانو جوغنو حفلة oo qiimo badan oo laga hadlay taariikhdeeda iyo wixii la soo maray taas intaasay noogu filan tahay laakiin maxaa loo baahan yahay taariikhdaas laga soo hadlay iskama imaanina waa la keeno rag iyo gabdhaa keenay maxaa annagana looga baahan yahay waa ogtihiin waxa la soo maray qarankan uu soo maray qof kastoo inta fadhiyo kii wax akhrinayayna waa arkay kii wax dhegaysanayayna waa maqlay waxa la soo maray waa ogtihiin qarannimadan loo soo halgamay oo intaas soo martay heerka aan gaarnay waxay ahayd Afrika dawlado badan inaan annaga xoreynay waa ogtihiin waa lagu faani karaa wax qof aan ku faani karno dawlado ugu waaweyn maanta Afrika qaybta annaga aan ka qaadanay oo aan xoreynay waa la socotaa iskama imaanin dadaa keenay fikira keenay maskaxa keentay looma baahno caatifad qabiil waxa meeshana dhigay waay hadda aan joogno 30 sano dheeraadan joogna maxaa laga faa'iiday qabiil yaa noo sheegi karo waxaan ka faa'iiday gobonnimadii aan inta ogaanto loo soo dagaalamay oo Afrika iyo wadamo badan aan ku xoreynay maanta meeshaan aan joogna sabab annaga u ah qayb annaga kamid ah ka shaqeysa gumeysay la shaqeyn jireen sidaas ayaan ku naqanay inaan ku dugno taasaa keentay waxaan rabaa inaan hal mid idin xasuusiyo dhibaato kasta oo Soomaaliya ku timaado mid hore ha ahaato ama mid hadda joogtee dad Soomaali ah ku lug leh oo calooshoodu shaqaystayaal ah xaqiiq waana ognahay waana soo aragnay waxaa loo baahan yahay maanta meesha aan joogno iyo quruxda aad leedihiin iyo dawladnimada iyo fadhiga aad fadhidaan iyo karaamada waa u jeedeen iskama imaanin ma horaan u wadnaa mise gadaalaan u celinaa bal gacanta taaga gacanta la taago hore ha loo socdo hore in loo socdaa la rabaa hore aan u soconno dadkii keenay maanta dadkaas Soomaalinimo waa laga aqoon badnaa laakiin maxay lahaayeen qalbi iyo niyad
qalbi iyo niyaday ahaayeen hantina adinkaa ka badan aqoon adinkaa ka badan laakiin soomaaliya lahayd dun wanaagsan ay ahayd laaluush qaatiyaal ma ahayn laaluush qaatiyaal ma ahayn xoolahooday gadanaya gabdhahana dahabkooday dhiibi jireen iskama imaanin marka tan maxaa loo baahan yahay maanta khudbada madaxweynaha iskale asaga nooga sheekeen doono tan noo warrami doono waxaan rabaa ana warkii waa soo koobaya madaxweynaha siina meeshaasaan rabnaa caawin wax noo sheego hal arrinaa ku soo gebagabayna 15 May meeshaan xafladan u joognay madaxweynaha ani asaga wax baan ku ballannay inaan xasuusiyaan rabaa waxaan ku ballannay inuu macallin ii naqdaan ku ballannay madaxweynaha waa iga mashquulayaan u malaynaa macallin inuu ii naqdo YouTube-ku ii baryaan ku ballannay marka madaxweyne waa iga mashquulshaan ku sameeyay u malaynaa YouTube-kii macallinkaad iigu naqdaan waa kaa soo dhawaa ku soo dhawaa madaxweyne aan macadsanta waa macadsanta ninkan نفرسية مرك نفرسية بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن كسمها قدوميها قولها شعبك أهنا قدوميها كواد قولها شعبك هزارها حكومة دولة فدرالك gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweynaha dowlad goboleedka ee koonfur galbeed golaha wasiirada xukuumadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda wasaarihii hore ee Soomaaliya gobolada kooxda waa bari oo ah hooyada fanka bambeyda iyo kooxda salaam sharafta bahda saxaafadda marti sharafta kale oo caawa kulanka nagala soo qayb gashay dhalinyarada taagan ama fadhiya oo gaaraya la yiri 500 daljir ka dahsoon dadweynaha nagala socda TV-yada iyo idaacadaha kulli waxaan ku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan munaasabadan isugu keenay waan u dabaaldegayno xuskii sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 26 Juun 1960 oo ah markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen heeryadii gumaysiga iska qaadeen waxaan u mahadcelinayaa guddiga qaranka oo noo soo qaban qaabiye caawa iyo wiiga usbuuca xorriyadda oo sidaan qurxoon noogu soo qaban qaabiyey xafladdan quruxda badan gobolada waa bari aan mahadcelin kale aan siiyo heesaha wadaniga ah ee caawa halkan ku soo bandhigeen waa bari waa soo noqotay siday u muuqato abwaan shube aad iyo aad yuu xaqiiqdii u mahadsan yahay hal kaftan aan ku daro abwaan shube caawa si fiican buu u cayaaray marka waxaan la yaabanaa siduu isu balance gareeyey markuu cayaarayay cayaar qurxoon bay ahayd oo qoobka cayaara weliba waxaan kale oo ishayda qabatay khadiijo wasiiradda
oo caawa afka soo xiratay markii la yidhi koronihii dadka kulli afka waa wada furteen waxaan xasuustaa hobolladii nakruuma markay xanuunsatay oo cisbitaal martiina ay ku jirtay iyo khadiija ku noqnoqonaysa markaas afka uma xirnayn maray timid waxay tiri cisbitaal martiinaan ka imid waxaan ku yidhi yaa ku soo geliyay meeshaan horta adoo afkaaga furan yahay waxay tiri cirbaddaan sugaya cirbaddii way qaadatay weli afkaa u xihan hadda markii koronaha cirka marayna afkaa u furnaa marka waxaan weydiinayaa sababtii afka u xirata caawa waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caawa inaan u hambaliyeeyo caawa waa habeen wanaagsan waa habeen farxad aada iyo aada u leh noo ah maxaa yeelay waa 26 juun oo aan inagu xorriyadda qaadanay 1 julaay xaqiiqatiin waxa weeye 1960kii 26 juun waxay noo ahayd habeen taariikh leh oo ummadda soomaaliyeed ay aada isugu soo baxeen beertii xorriyadda ee magaalada hargeysa lagana taagay ama laga suray calankii soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horreyso ciid soomaaliyeed laga taagay waxaa xusid mudan waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirino waxyaabahan ka xasuusano waxaa ka mid ahaa abwaankii allah u naxariisto oo hadda dubbe uu noo sheegay gabaygii yaraa uu ka tiriyey goobtaas ee ahaa cabdullaahi suldaan timcadde allaha jannadiisii naxariistiisa siiyo isagoo qiiraysan oo xamaasad badan ay hayso yuu wuxuu tiriyey tix gabay ah xoogaa yar yuu ka taabtay bal anna xoogaa yar aan ku daro wuxuu yidhi saaxirkii kala guurnay sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaana siid kana saar waxay noqotay tix taariikhda soomaaliyeed baal dahab ka gashay oo mar walba oo aan xorriyadda u dabaaldegayno ay tahay inaan soo xasuusanno waxay ahayd habeen qiiro badan oo qaali ummadda soomaaliyeed ku ah oo qiimo leh oo farxad badan wadatay shacabka soomaaliyeed meel kasta ha joogaane shucuurtoodii iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii soomaalinimo ee wadaniyad xakameyn waayeen waxay ahayd habeenkaas habeen farxad badan waxaa ka horreeyey habeenno badan oo Israel iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan ay hooyan waayeen dhibaatooyin culus ay soo mareen 17 sano oo dhibaatadaas ah laga bilaabo 15 May 1943 waxaa ku timid horseedayaashaas leegada dhimasho badan dad badan oo loo xiray dhaqaalo badan oo lagu bixiyey dadkii halkaas ku dhintay halkan waxaa nagala jooga ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdi yuusuf aabihiis yaa ku dhintay allah u naxariistee aniga naftigay aabbahay 10 sano ku dhowaad buu u xirnaa oo waxaa la soo daayey 60kii markii xorriyadda la qaatay marka victimku waa badan yahay oo la sheegay iyo dhibaatooyinkii la soo maray marka anigii maxamed cabdi yuusuf waxaan nahay dhashii Israel idinkuna waa tihiin waxay ahaayeen urur runtii hoggaamiyey ururadii kale oo siyaasadeed ee waqooyi ka jiray ay ka mid ahaayeen USP NUF iyo SNL waxay ku guulaysteen
xisbigii SYL ama maxaan ku idhahdaa horseedkii SYL waxay ku guulaysteen ama dhaqdhaqaaqii waxay ku guulaysteen inay ka furtaan xafiisyo meelo badan oo dalka ka mid ah hadday noqoto waqooyi berbere aan ka soo qaado hargeysa burco meel kasta oo ay joogaan soomaaliya xisbiyadaasaan sheegay ama ururadaasaan sheegay waxay qayb ka ahaayeen xoreynta dalka ayay qayb ka ahaayeen SYL waxaa tusaale u ahaa oo mar walba ay ka dhiganayeen tusaale dhaqdhaqaaqii gobonimidoonka ee gobollada waqooyi ka bilowday uu hogaaminayay allah u naxariistay sayid maxamed cabdulla xasan oo la dagaalamayay gumaysiga ingiriiska muddo 21 sano ah hadafka SYL muxuu ahaa hadafka SYL waqtiga dheer qaatay 17 sano qaatay wuxuu ahaa laba arrimood mideynta dadka Soomaaliyeed oo gumaysigu u isticmaalayay inay kala qaybsanaadaan uu kala qoqobo oo qabiilka ugu horeeyo waxa kale oo hadafkoodu ahaa inay xoreeyaan dalka macnaheedu waxay ahaayeen xornimo doon iyo midnimo doon wadada ay ku raadinayeen midnimadaas iyo xornimadaas ma ahayn qabiil maxaa yeelay qabiil waxaa isticmaalayay gumaysiga isticmaalayay waxay ku raadinayeen mabaadi'da ama afkaarta wadaniyadda ayay ku raadinayeen maxaa yeelay wadaniyaddu waxa weeye dal jaceyl weeye waa wax ka sarreeya qabiil iyo qabyaalad iyo qof wax ka sarreeya weeye waxay ku guulaysteen dadka inay mabaadi'daas wadaniyadda ah ay geliyaan ayna u dhintaan ayna u halgamaan waxay ahayd taasoo lagu gaaray horumar la taaban karo dhanka kale qabyaaladda iyo wixii ummadda kala qaybinayay iyadana way ka fogaadeen oo qofkii lagu asteeyo ama qofkii lagu arko ka mid ma ahayn dhaqdhaqaaqa SYL-ka dhallinyaradaas hadafkoodu waa gaareen hadafkoodu oo ahaa inay dalka xoreeyaan waa tan caawan u dabaaldegayno 26 juun oo ka soo wareegtay 61 sano 1960kii oo gobollada waqooyi ay xorriyadoodii ka qaateen ingiriiska iyo gobollada koonfureed oo iyaguna July 1deedii 1960kii iyaduna ay ka qaadatay xorriyaddii way ku guulaysteen hadafkoodii way ku guulaysteen waxay kaloo ku guulaysteen inay koonfur iyo waqooyi ay mideeyaan waa ku guulaysteen waxay ahaayeen runtii dad afkaartoodu ay aad u sarreyso qanciyey ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan oo midnimadu ay ka xoog badan tahay wax walbaba waa isla garanay in dhallinyaradaas visionkoodu ama aragtidooda fog ay ahayd midnimo iyo xoreynta dalka keentay qarannimo saas darteed qarannimada waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo dowladnimo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda in laga shaqeeyo sidoo kale waxaan kala ognahay qaybsanaanshaha iyo qabyaaladdu waa the opposite waa ka soo horjeedka wixii aan sheegay qabyaaladdu iyo kala qaybintu ummadda Soomaaliyeed waa hooyga qaran la'aanta waa hooyga colaadda waa hooyga dowlad la'aanta waa hooyga saboolka iyo faqriga waa hooyga sharaf darrada marka ugu dambaysana intaas markii aad gaarto shisheeyaa ku maamulanaya marka ilaa dad ma tihide taas weeye waxa ay ka dagaalameen allaha u naxariistay 13 hormoodka ahaa ama horseedku ahaa leegada jidkaas aniga aan sheegay oo xunoo dambe way ka leexdeen jidka waxay aadeen inay
midnimada aadaan qarannimona raadiyaan dalkoodana ka xoraystaan dadka ku soo duulay oo raba ummadooda inay gumeeyaan haddaba su-aasha taalla waxay tahay dhallinyaradaas waa garanay oo waa aragnay vishinkooda meeshuu gaarsanaa waana ka faa'iidnay xaqiiqatan maxaa yeelay jiilka aniga aan ugu yarahay uuna ugu weyn yahay maxamed cabdi yuusuf yaa wax ku bartay dowladnimoay ku heleen magac iyo sharafay ku heleen haybad ayay ku heleen 30 sano yaan ku macaashin waxay tahay marka su-aasha dhallinyarada hadda joogta muxuu yahay vishinkooda aragtidooda fog muxuu yahay 61 sano kadib muxuu yahay higsigooda waxa weeye dhallinyarada hadda joogta waa inay isweydiiyaan maxaa ay uga duwan yihiin dhallinyaradii hore oo dalkan midaysay oo xorriyadda keentay maxay uga duwan yihiin aniga waxay igu muuqataa aan ku horumaray dhallinyarada waa weydiiyey qof walba ha ka jawaabee aniga aan ka jawaabo waxay igu muuqataa waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan mustaqbal wanaagsan khaasatan dhallinyaradeenna yaa ii muuqda dhallinyarada maanta waxa weeye intaas waa fahamsan yihiin waxaana ku socda isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sanadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona haba u badnaadaan dhallinyarada halkan fadhida qaarkood kuwo badanna ay magaaladan joogaan oo nooga yimid waqooyiga soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqa xoog leh wada sidii soomaaliya loo mideen lahaa si dalkaanuu horumar u gaaro waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhallinyaro oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoommada waxay ka bilowdaan gobollada waqooyi anaa idin sheegaya sababta waxa weeye aan ammaano dadka waqooyiga soomaaliya aan ammaano waa dad wadaniyiina horta waa dad wadaniyiina waa dad ay ku weyn tahay gobonnimada oo jecel gobonnimada jecel waa dad matali kara qabka soomaaliyeed sidaas weeye meesha mar walbaba halganka soomaaliya looga xoreynayo gumaysiga ay ka bilaabato oo tusaale waxaa noo ah sayid maxamed cabdulla xasan oo 21 sano dagaalamayay maanta waxaa si xowli ah u socda marka ama waayahan si xowli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimo doonka ah dhaqdhaqaaqaas midnimo doonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo SYL-ka inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda Soomaaliyeed loo mideeyo waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe hawladeenno ururo ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay waxay ii sheegeen mabaadiidooda iyo waxa gaarsiiyey inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo sida ay diib u yihiin waxay ii sheegeen arrin iska generaal ah guud ahaana iyo arrin aad iyo aad diib u ah oo aad iyo aad u hooseysa waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa qarannimada waxay yidhaahdeen waa qortay oo waa noodgareeyey waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf midnimadu waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar degdeg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato maxaa yeelay
dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa laakiin dad iscunaya looma imaan karo midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjeceyl iyay wadataa midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno waxay keenaysaa khayraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno ilaan waxaan nahay dal qani ah iyo dad saboolah dal qani ah iyo dad saboolah ayaan nahay laakiin shuruudda ka horreysa waxay tahay midnimada in la helo intaas igama aysan tegine waxa ay siiyeen riboor qoran oo reference leh oo caddeynaya soomaali waxay haysato hadday og tahay iyo haddaysan ogeyn oo dhallinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofkii arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa maxaana haysta maxaana kala haysta aan isugu imaan weynay maxaan u heli weynay dowlad midaysan maxaan u heli weynay dal midaysan waxay ii keeneen marka xog ay soo aruuriyeen aan idinla wadaaga marka ii dulqaata xogtaasi waa ribooro la qoray waxaa ka mid a ribooradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo geo spectrum iyo british petroleum iyo shell oil ay qoreen 2014 iyo 2015 in Soomaaliya ay leedahay shidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya 5,000 oo bilyan waa 5 trillion ma aha wax cirka laga keenay ma aha waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey ay qoreen way waxay yiraahdeen annagoo 5,000 oo bilyan haysana ama 5 trillion haysana yaan waxna loo keenaa oo nala caawiya waxay igu dareen report kale oo ay qoreen BBOE waxa weeye billions barrels of oil equivalent waxaa la qoray 2017 wuxuu sheegayaa natural gaska Soomaaliya ku jira oo kaydka ah inuu yahay 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah intaas waa inta gudaha ku jirta oo aan u baahanahay dadyow kale inay noo yimaadaan oo wax nala wadaagaan laakiin waxa dhulka korkiisa saaran waxaa ka mid ah xoolahan dhaqanno ama livestock oo ay sheegeen UN report on export UN ka report ay sameeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo ay sheegeen oo muujinaya report la qoray 2015 in xoolaheenu ay gaarayaan qiimahooda 2 bilyan oo dollar ogaada si organized ah uma xanaanino dad reemiya wata dad reemiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyaga dadku ku nool ee si cilmiyeysan xoolaha looma dhaqdo haddii xoolaha si cilmiyeysan loo dhaqdo macnaheedu intaan waa conservative waa tira cadad aad u yar wey intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tira conservative ah wey waa inta ugu yar waxaa soo haray kalluunka commercial fishing waxa weeye iyadana UN conventions of the law of the sea ay qoreen 2014 waxay sheegeen badeena khayraadkiisu inuu yahay 1 bilyan inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa wey waxay kaloo ii keeneen oo ii sheegeen wiilashaas waqooyi ka yimid macdanta dalka ku jirta reportkana waxaa qoray Nuclear Energy Agency waxa weeye NEA yaa qoray
2016 waxaa ku jira uranium dalkeenna, waxaa ku jira dahab, waxaa ku jira silver ama qalin, limestone, diamond xitaa waa leenahay, iyo tan diyaaradaha laga sameeyaa, copper waa biraha, iyo uranium. qiimaha waxay sheegaysaa inay tahay 2 bilyan, waa inta ugu yar weeye iyada naftigeeda. beeraheennu waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan ilaa 8 milyan hectares oo dhul ah oo la beeran karo. waxaan leenahay 2 webi oo inta badan aan go'in oo socda. wax kastana dalkeena waa laga beertaa. iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen riboorkan la qoray 2015 iyo 2016 oo ay qoreen UN reports on export iyada nafteeda on agriculture. waxa weeye 3 bilyan waa inta ugu yar. tourismka, dalxiiska lama hayo, bacdama annagu aan isdilayno cid noo imaan karta ma laha. saas darteed cid dalxiis kugu imaanaysa ma jirto. laakiin waxaan leenahay badda ugu dheer yaan leenahay, xeebta ugu fiican yaan leenahay, oo meel walba resort laga dhigi karo yaan leenahay, jasiirado ayaan leenahay. waxaan leenahay badda waxay leegtahay ugu dheer Afrika markaan leeyahay waa 3,300 oo kilomitir weeye. waxay lahaan kartaa ilaa 20 dekadood oo dekad walbaba wax laga dhoofiyo. qaar shidaalka laga dhoofiyo, qaar xoolaha laga dhoofiyo, qaar logistica kaliya ah, qaar ganacsiga caadiga ah, nooc kastaba. maxaa yeelay ilaahay wuxuuna siiyey wuxuuna siiyey strategic place, meel fiican iyo ilaahay nagu abuuray oo cid haysata ma laha. 2 badood, badda cas iyo badweynta Hindiya. waxaa mara ilaa 60,000 oo maraakiib yaa marta baddeenna, oo haddii aan ka faa'iidaysan karno xeebaheenna, maraakiibtaasi ay khasab tahay inay ku istaagaan ama biyaha ka qaataan ama ha ku nastaan maalmo. dhallinyaradaas marka ii timid oo midnamadoonka ah oo wareegaysa waxay yidhaahdeen Soomaali ma kala maaranto, intaas oo ilaahayna waana siiye khayraad, maxay tahay waxaan haysta marka. xoogaa waxay wax ka sheegeen siyaasiyiinta, wax ka sheegeen, waa nagu fogaadeen. waxay naga sheegeen halka ku celin maayo, laakiin wax fiican ma sheegin. aan ku soo koobay waxay yidhahdeen siyaasiyiintu waa dad danahooda ka shaqeeya iyo guryahooda, dana guud kama shaqeeyaan, iyo mustaqbalka carruurteena kama shaqeeyaan, taariikh kama shaqeeyaan, mustaqbalka iyo masiirka dalkana kama shaqeeyaan. waxaan ku yidhi war nimanyo ha nagu fogaanina, wax noo reeba. waxunbaa dhab ka ah arrintaas. waxaanse idiin sheegi, midnimadu sahal kuma timaado. dhallinyarada waxaan leeyahay, haddaad doonaysaan midnimo waa inaad kacdaan, waa inaad istaagtaan. annagu siyaasiyiin baan nahay, haddaan dale kala duwan leenahay noo sheega oo noo imaada oo marmarka qaarkoodna khasba. haddii kale 20 milyan waa gaaraynaaye wax yar baa naga soo haraya. gaajaan u laanaynahay iyo macaluul iyo sabool. inta siyaasiyiintu ay kala hayaan, dadka shacabkana waa dhimanayaan. carruurteena mustaqbal ma yeelanayaan. waxa ummadda ay ku kala maqan tahayna wax macno leh maaha, waa wax yaroo la xallin karo. dhallinyarada marka waxaan leeyahay, hana sugine ee kaca sidii SYL u kaca oo dhaqaaqa. aan ku noqdo mustaqbalku, anigu waxaan aaminsanahay rajo fiican baa jirta. dadkeennu waa dad wanaagsan oo dad qiimo leh weeye. waxaan ilaahay ka baryayaa in rajadaas ilaahay noo rumeeyo, yaan ilaahay ka baryayaa, oo ah in midnimadeennii
ay soo noqoto oo dadka Soomaaliyeed waqooyi koonfur waa la isu baahan yahay aan dib isugu soo noqonno maslaxadaha yararkaana laga tago wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh